بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan waa aniga wadajiyaha iyo Dr. Ford Ciro. Caawa waxaan rabnaa inaan wax yar ka iftiimino arrimihii doorashooyinka Kenya. Wixii ugu dambeeyay طبعا Kenya doorashay gashay Dr. Ford Ciro. Doorashadii codbixintii iyo waxa weeye campaign-kii iyo abaabulkii waa soo afjarmeen waa dhamaadeen. hadda waxaa loo fadhiyaa natiijadii oo inta aan ka warqabno oo muran galay laguna qanci waayay go'aankii ay soo saareen guddigii doorashada ee madaxa banaana bal xagee wax marayaan doorashadii Kenya codayntii kadib natiijada iyo go'aanka la sugayay hadda waqtigan xaadirka muxuu yahay maxaase doorashadii kadib Kenya ka jira oo mahadsantahay dajiye horta doorashada Kenya waxay maraysaa meel aad iyo aad u cakiran bay maraysaa waxayna u badan tahay ragga dawladda haysta Azimio Party xisbiga Raila wato oo Uhuru Kenyatta uu dabada ka riixayo chairman-kana uu ka yahay in awoodii dawladnimo ay ku dhigan yihiin ayna rabin inay si fudud ku sii daayaan marka shalayto waa ka arkaysay waxaa la keenay gaadhi dhan oo buuxo oo ah gaadhiyaha xamuulka qaado oo ay ku reeran yihiin faylasha maxkamadda loogu talagalay evidence ahaan marka horta saddex wax unbaa ka suurtageli doono maadaama doorashadii maxkamadda la geeyey ka koobaad waxaa weeye waxa la dhaho rerun oo ah in labada madaxweyne keligood tartan ay dib u galaan midda kale waxaa weeye recount in dib loo xisaabiyo wixii macnaha doorashada ka soo baxay iyo nullification doorashada dhanba in la kansalo oo maaragtay doorasho cusub lagu noqdo maadaama systemkii oo dhan uu corrupt u noqday marka petitionka ay qolyahan geysteen sida uu sheegay ninka la yiraahdo James Orengo oo ah councilor weyn ee maaragtay lawyerka oo ah Raila Odinga waxa weeye waxay codsanayaan oo waliba uu niyadda macnaha ku degsanaya inuu yiri anagu waxaan u baahanahay in retallying lagu sameeyo ama dib u xisaabin lagu sameeyo formasha 34A iyo 34B marka arrintaas ayada ah waxaa jirta arrin ayna dadka ku baraarugsaneen oo waxaa jirta hadda ka hor nimankan seegtay baa jirta qoladan madaxweynaha iyo Raila haye seegtay baa jirta marka arrintaasi waxay ahayd waxay rabeen doorashada markii la galahayay intayna dhicin ka hor waxay rabeen in hard copy-ga bes ah la isticmaalo returning officers-kana waxa ay hard copy-ga see ku imaatay madawadiis okay hard copy-ga waxa weeye macnaha waraaqihii lagu codeeyay ee polling stationada laga soo celinayay warqadihii ayaga ahaa ayaa marka waxay rabeen qoliyaha Uhuru Kenyatta ayo hard copy-ga bes in la xisaabo oo natiijadana ka lagu iclaamiyo oo aan la isticmaalin data system-ka oo lagu soo gudbiyo internet before hard copy-ga aan keenin okay inaan la isbarbar dhigin hal mid kaliya oo hard copy-ga la xisaabsan waxa dhacday maalintii election-ka la aaday maalintii ka horeysay Amin Casar Gaabad ayaa maxkamadda high court-ka ay qoliyaha Ruto iyo intay marka hore u aamuseen yaa markii ugu dambeeyay bay geeyeen case-ka ka geeyeen arrintaas inayna sax ahayn dacwad ka geeyeen oo loo baahan yahay in la isticmaalo digital-kii la soo submit gareeyay iyo hard copy-ga labadaba in la isla xisaabo oo hard copy-ga kaliya lagu adkaysan qoladan dawladdu markaa ma dhihi karnaa waxay rabeen haddii hard copy-ga keligii la xisaabo inay wax isdabamarin sameeyaan exactly oo ay ileen moogtahay waraaqaha qaar baa la tuuri karaa qaar baa waxa weeye lagu dari karaa kuwa hor leh marka inaan systemka daatada caadiga saxda aan la isticmaalin isticmaalin tan kaliya
arrimahaas ka maaganayeen iyo ka maaganayeen okay hadda markii uu Ruto ka dacwooday ma aqbashay oo way aqbashay sababtoo rag meesha u joogay baa jira xaakimka high court-ka ayaa overturning ku sameeyay barnaamijkii dhanba waa la bedelay last minute كل ولا وترني أبلي ولا وترني أبلي ديجيتالكي أو لو سو قد بينا هي إنترنتك إيوه هارد كوبي لبضوا ولا سلا ترني أبلي هل كان فشل بمركبي فشل بمركبي وقت أيجنا محكمة دي كعليان بالدور شيء بتاجنيد يا تاجنيد لما تشوفين روتو المركب وحنو به كرنا وتوج لما قال وايد نيكا واجينيس توج ما حدو توج ما حدو كذا هذه مركب أوكي حتى جيمس أورانكو خطة وربع إنه كوجوليستان كوشيء جيمس أورانكو واللوير كوين كان سلاجة رئيلة أرميس أورانك عنده كوايو نمبر 1 وحوي ستيب كوبات وإن ريتالينج لو سميه فمياش داتيفو بي مركا كبعدنا هاي كود كأو كودا وقف كمدحوينها يقوليست مركي يدبر حساب يعني معناها Supreme Court Supreme Court إنه حسابه وكل واقع مدحوينها ساسي ربامبا وعدك Supreme Court كتريو سيكو صورة جلسة أرنتاسي وحيكو صورة جلسة وحيكو صورة جلسة حال وحيكو صورة جلسة يوم وحي كأمن بحين كل واقع بدورشة واحد صار عنك مسؤول كأها كل واقع وفولة شبكاتي أو أنك جودك تشيرمان كوها أيضا شرعي أهيد هذا مركو حسمينيان السجع أي ماشى كس استيب كلابات أرنتن أوسور تجلسه وحويان إن وفولة شبكاتي كو هرتا كل واقعستي وجود واقعي لأمرته إنه ياهي مدحينها لدورتي إن لكوش كري أو ماشى دن لجس عرف markaas wuxuu yiri James Orengo wax madaxweyne elect la dhaho ma jirto wadankan dadku dhan waa garbasima stepka saddexaad ee rabaan waxa weeye Wafula Chebukati inay toogtaan oo meesha ka saaraan oo ah ninka chairmanka ee hadda ayaga ku dhawaaqay ee IBC-da toogtaan macnaha inay dilitaan ma aha عشان inay booskiisa inay ka tuuraan ay macnaha meesha ka qaadaan marka ay Wafula Chebukati meesha ka qaadaan waxa meesha automatically oo la wareegaysa way ka waa nominee buu ahaa ninku waa la magacaabay macnaha markii ay case maxkamadeed ka gudbiyaan Supreme Court-ka ayaa go'aan ka gaadhay marka iyay marka rabaan in lagu bedelo isla markiiba automatically gabadh la dhaho Juliana oo ku xigtay isaga waxa la Juliana Cherera ayaa la lahaa Juliana Cherera ayaa automatically oo noqonayso kor u soo fuuraysa booska ayadana waxa weeyaan waa naag ku dhaarato Raila Uhuru ayaga gacan saar la leedahay okay marka hore waxay joogtay arrintan ku dhawaaqisteeda toddobada guddiga doorashada oo number 1 uu ka yahay Wafula Chebukati number 2 ay gabadhan ka tahay Juliana Cherera la dhaho marka afar guddiga kamid ah already waa compromised micnaha waxa la wareegay Uhuru iyo kooxdooda saddexdii soo hadhay ka baxay ee Serena shirka ku qabtay afarta hadday ka baxday saddex baa soo hadhay oo Wafula Chebukati uu ku jiro Wafula Chebukati oo chairmanka ah meesha ka saar asagana waa laga saari rabaa marka yaa soo hadhay laba bisa soo hadhay labadaas nooc ma sheegayaan marka waa majority ba macnaha dhinac u batay marka saas la yeelo doorashada marka hadii lagu celiyo natiijadu way sahlanaan doontaa hadii lagu celiyo iyo hadii dib u tirin lagu sameeyo labadaba ayaga meesha haysta midda kale maxaa la isticmaali ku dhawaaqayna waa gabadhaas weeyaan maxaa la isticmaali hard copy-ga marka khidadaas ay rabaan inay hadda ku guuleystaan gelaysaa marka that's the question arrintaasaan kaaga warramay sheeka ajaa'ib leh waa horta soo baxday high court-ka waxa uu weyn Chief Justice Kome naag la dhaho Chief Justice Kome maalin dhaweyto markii arrintan petition-ka ay geeyeen waxay soo rogtay waxa la dhaho gag lawyer gag waxa la soo rogtay lawyer gag-inka waxa weeye sharci lawyerada oo macnaha maaragtay veteranka ah ee meesha sharciga aadka u kala yaqaano lagaga celinayo inay comment dhan ka bixiyaan sharciga doorashada ka meeshan hadda ka socdo ee petition-ka
laba ruux bay si khaas u macnaha arrintaas u taageed garanaysaa nin la yidhaahdo axmed naasir ood garanayso looyarka soomaaliga caanka ah kansalaaga caanka ah iyo nin la yidhaahdo sam havi oo asagana wuxuu soo noqday chairman wuxuu soo noqday chairmanka wuxuu soo noqday looyarada Kenya ayuu soo noqday labadoodaba chairman bay soo hayeen marka labadaas ayaa waxaa lagu soo rogayaa xayiraad xagga informationka laakiin waxaa dhacday mataqaanaa Supreme Court-ka markii ay gabadha soo saartay oo waa dadka raacsan Uhuru Kenyatta CJ Kome markay soo saartay arrintaasi oo looyaradaasi ka xayirayso inay dadka ay tacliimiyaan ay uga waramaan meesha sharciga macnaha iyo qaabka wax u dhacayaan inay public ka dhigaan markii ay damcay inay ku soo rogto isla casarkiiba ayagana high court-ka ay ruling cusub ka soo qaateen oo ay ku diidan yihiin overturning baa lagu sameeyay hadda rulingkeeda marka wax walba waa lala soconayaaba waa lala soconaya nimankii la rabay in hadalka lagu celiyo way suurtageli weyd axmed naasirna arrintaas uu kasoo tweet gareeyay marka legally dadka waxaa weeye waa la inform garaynayaa wixii tallaabooyinka la qaadayo wax kasta oo tallaabo oo la qaadayo waan la socon doonaa insha allahu tacaala iyo qodobada loo isticmaalo because looyaradii waaweynaa haddii in xayiraad lagu soo rogo aan ka gudubno qolada Ruto qoladan waynu sheegnay dawladda iyo waxay damacsan yihiin Ruto iyo xisbigii guuleystay maxaa iyaga u xal ah ma waxay iyagu ka warsugayaan maxkamaddu go'aanka ay gaadho oo iyagu hadda wax buuqa kuma jiraan mise iyaga laftirkoodu suxulduub waxay ku jiraan inay kursiga ay heleen difaacdaan oo tallaabooyin ay qaadayaan baa jira iyagana horta nimankaas hawl badan bay ku jiraan shaqo badanna way haystaan waa very smart marka hore waxay joogtay 7 IEBC-da oo ah guddiga doorashada inay ku dhawaaqaan 7 IEBC-da ahaa 4 ba horta lala kacay oo waxa weeyaan Raila iyo kooxdiisa ayaa qaadatay 4 afartaas waa compromise Serena way tageen waxay dhaheen annaga waxa meesha ka socda Bomas Kenya iyo ku dhawaaqista William Ruto madaxweynaha loogu dhawaaqay intaasba waa null and void waxbana kama jiraan wax isdabamarin baa la sameeyay markii arrintaasi sabotage lagu sameeyay oo arrintu ay isku qasbay muranka la geliyay hadda waxay joogtaa 7 kale oo Supreme Court-ka okay marka go'aanka Supreme Court-ka hadda laga sugayay waxa gaaray hal shakhsi ma ah waa 7 shakhs panel oo 7 awiyay sida Supreme Court kan Mareykanka oo kale way u codeyn doonaan codkooda meeshu raaco ayaa lagu xukumayaa majority baa lagu xukumayaa todobadooda marka haddaan su'aal ka dhex weydiiyo suurtagal ma tahay inay axzaabta kala raacsan yihiin iyaga laftoodu sidii 7 guddigii doorashada kale yes of course way kala raacsan yihiin hadda arrintaasaan ku iftiiminayaa profile-kooda haddii la fiiriyo tan gabadha ugu weyn ee la dhaho waxaa la lahaa Chief Justice Kome ayaa la lahaa inkasta oo BBI-da ay kasoo horjeeday laakiin 2017kii waxay ka mid ahayd baan u malaynayaa dadkii Uhuru raacsanaa marka dhinaca dawladda iyada loo actually Maraga ayaa chairman ka ahaa marka hore Chief Justice Maraga ayaa chairman meesha ka ahaa ayada waxaa soo appoint gareeyay Uhuru Kenyatta marka dabcan Uhuru bay markaasi taageero u tahay gabadha ugu sareyso lixda kale waxaa ku jira ninka Soomaaliga ah Maxamed Ibrahim la dhaho asaga waa pro Ruto sida la sheegayo nin baa ugu jira Supreme Court-ka 7 ruux ee ugu sareyso Supreme Court-ka Kenya halin oo Soomaaliya ku jiro wana share fiican weeyaan Soomaalida markii loo fiiriyo oo qaybsiga arrintaas ma ku baraarugsaneen okay laakiin wax xubin muhiim ah weey marka ninkaas marka la dhoobo dhinaca dawladdu isagu u badan yahay dhinaca horta ninkaas markasta wuxuu iska raacaa meesha xaq uu jiro last time markii papers ku fiiriyaa nin waxa weeye aqoon iyo cadaalad wax ku saleeyo isagoo aan cid gooni ah BBI-da hadda oo qorshihii ay wateen waagi dhaweeyteen Uhuru iyo Raila wuxuu ka mid ahaa marka taageeray baa dhulku ku daray
ورق الديري عشان كنت ريبها وحيدي مدحوينها popular waxa la dhaho popular initiative ma sameyn karo waa wax lagu bedeli karo referendum shacabka inay macnaha wax sharci ku saabsan sharci constitutionka halin iska bedeli karo even if had madaxweynaha ilaas ma raha uu diiday okay marka waxa la hubaa labo inay horta laba inay u codeynayaan Azimio Party oo dhinaca madaxweynaha iyo Raila waa labo saddexna waxa la hubaa inay maaragtay xaq William Ruto Ruto wuxuu ku leeyahay taageerayaal cusub saddexa ninka Soomaaliya saddex ugu noqonay okay marka laba soo hadhay waa 7 marka labada kale waa swing vote waa rag aan la saadaalin karin weligood oo xukunka dhinac u ridi doono meesha ay raacaan buu go'aanku noqonaya marka good marka okay arrintu waa sidaa weeye hadda marka maxaynu marka filaynaa marka go'aanka hadda maxkamadda laga filayo muxuu noqon karaa hadiise maxkamaddu ay go'aan rido oo go'aanku hadda dhaco ma jirtaa wax la yiraahdo appeal inay sameyn karaan Raila iyo xisbigiisu iyo madaxweynaha oo ay macnaha go'aankaas kaga dacwoon karaan iyo meel ka sarreyso la sii aadi karo madax maxaa la yidhi meel ka sarreyso meesha waa Supreme Court meel laga sii aadiyo xaggaasa ma jirto appeal ma jiro go'aankay qaataan waa final waqtiga markay haystaan muxuu noqonayaa go'aanka ku gaari doonaa waxaa Kenya election waxaa rabaa in lagu soo hadii ay recount noqoto iyo hadii rerun noqoto oo labadaba waxa weeyaan laba bilood inay dhaafto lama rabo 60 beri bes haystaan hadii go'aamiyaan in dib xataa loogu noqdo 60 days bes haystaan ayaa lagu geliyaa laba madaxweyne loogu kala codeyn doonaa aad iyo aad baa u mahadsan tahay runtii Dr. Fadci waa kaaga mahadnaqaynaa barnaamijka iyo sidaad u iftiimisay xalqada kalena insha Allah taala oo ku saabsan bal arrimaha Kenya iyo siyaasadeeda iyo Soomaalida iyo labadan kooxood ee macnaha meesha xukunka isku haya qolada bareydanta ugu jirto Soomaalida ugu badani iyagana mar kale nu falanqeyn doonaa insha Allah taala waa soo noqon doonaa boqolkiiba aad baa mahadsantihiin ma sha Allah ay insha Allah daawasho waad mahadsantihiin intaas ku soo gabagabeynayna